السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوداش كحرن جنن كيغا تكتورس جيا كسو دواada walaalahayga qaaliga ah meel walba aad joogtaan si walba maqalkayga iyo muuqaalkayga idin soo gaarayo haduu rabraal ka noqdo mawduuca maanta hadlay wuxuu ku saabsan yahay waxyaabaha lagu garto in canuga naaska laga badiyay sidee loo ogaan karaa in hooyada canuga ay naaska ay ka badiso maadaama ay ilmuhu aysan sheegin karin meesha xanuunayso iyo sida loo haayo ee laga yaabo in markuu xanuun qabtaba uu canugu u ooyo hooyada ay u moodo canuga inuu naas rabo ama u baahan yahayba in uu wax cabo oo gaajo ay hayso sidee loo ogaan karaa marka cunugaasi in uu naaska u baahan yahay iyo in kale hadii aad ila socoto muuqaalka la garay siina share garay ugu horeen maxaa keeni kara in ilmaha naaska inta ay u baahan yihiin in ka badan la siiyo koow waqtiga kuleelaha kaasoo ilmaha oonka hayo hooyaduna ay u maleyso in cunugeeda gaajo ay hayso cunug markuu oon uu qabto xilli kuleelaha uu qeylaya uu ooyaa ilaa asaga waa sabi ma hadli karo hooyadan waxay u fasirinaysaa markaasi in canugeeda uu gaajo ay hayso kadib naaska ay ka dharjinaysaa labo canuga oo wax qaadashadiisa ay siyaado ay tahay in lagu badiyay maxaa lagu fahmaa cunugaasi waxaa lagu fahmi karaa cunuga oo wax qaadashadiisa laga badiyay koow canuga diliq uu dilqaya ama dareer oo matag oo sidoo kale oo caana ah ayuu keenayaa koow waxaa kamid ah canuga oo diliqiisa bato ama ku saxdo caanaha la siiyay labo canuga oo mataga ama bah calooshiisa xanuunsata saddex canuga oo saxaro badan dhiga taasoo qaar wixii uu soo qaatay ama isla markii hooyadu ka soo nuugay oo aan dheefshiidka ay marin ama aan la dheefshiidin oo muuqato afar kaadi badan iyo saxaro badan oo lagu arko shan miisaankiisa oo aad u siyaada haddaba sidee ayaan ugu hortagi karnaa ilmaha laga badinayo naaska ama waxay markaasi ay u baahan yihiin waxaan uga hortagi karnaa qodobka koowaad in waqti loo dhaxaysiiyo xilliga naas nuujinta ilaa 4 saacadood ilaa 3 saacadood in loo dhaxaysiiyo labo in hadii naasaha ay ku soo haraan caano badan oo uusan u baahnayn canuga in la miiro kadibna la geliyo ama la isticmaalo talaagadaha ama finjeerada la geliyo waayo caanaha markii finjeer la geliyo isma bedelaan hadii hooyada aysan xanuunsanayn dad badan ayaa aaminsanayn in caanaha hadii uu canuga uu ka badan yahay in caanahaasi la liso kadibna loo keediyo canuga xilliga ay hooyada ay maqan tahay ama ay aado shaqooyinka ama suuqyada ay canugaasi la siin karo caanaha finjeerka kuugu jiro hooyooyinkeena Soomaaliyeed ma aqaanaan ama sax qaar kamid ah ma yaqaanin habka caanaha naaska loo keediyo insha Allah mawduuc soo diyaarin doona haduu rabraal ka noqdo hadii aad la socoto muuqaalkan la garay un share garay asxaabtaada